prime minister wuxuu iskugu yeeray shir degdeg ah oo iskugu yeeray safaaradaha wadamada aan saaxiibka nahay ama international partners loo yaqaano African Union iyo AMISOM iyo SNA waxa la iskugu yeeray waxay ahayd qorshe hore u soo socday oo SNA waday iyo dawladda Soomaaliyeed ay wadeen oo ah soo dhawaaday markaan qaabkii fulitaankiisa soo dhawaaday sidii international partners AMISOM ay noogu taagi lahaayeen sidii loo wada sameyn lahaa qorshe cusub oo joint operation ah oo loo wada fulin lahaa xilliga soo socda arrimaha mataqaana la rabo in lagu cadaadiyo ama lagu mataqaana looga saaro gobolada badan ee ku dhex jiraan mataqaana nimankaas argagixisada marka arintaas shirkaas iskugu yeeray safaarado badan baa ka soo qeylay AMISOM baa timid waa la wada hadlay si sincere loo wada hadlay aad iyo aad u fiican waxaana ka soo baxay outcome aad iyo aad u fiican oo ah kii aan sugeynay oo ay 100% ballan qaadeen inay nagu taageeraan wax alla wixii aan uga baahnayn operationally iyo wixii training aan uga baahnayn inay nagu taageeraan aad bay u ballan qaadeen ballanqaadkaasi waa qaadanay annagana waxaan ku dadaalnaa insha Allah muddo dhow inaan bilaano fulinta hawshaas aad iyo aad baa u mahadsantiin qorshahaas waxa ka soo baxa outcome kaad arki doontaan uma baahna fasiraad kale waa mahadsantiin